gudoomiyaha gobolka Banaadir labada madaxweyne ee Hirshabelle iyo Galmudug xildhibaanada sanatarada iyo dhammaan murashaxiinta saaxiibada iyo dhammaan mas'uuliyiinta kale dhammaantiin waa idin salaamay salaanka bacdi waxaan hambalyeenayaa bogaadinayaa heshiiskiisa afgaradka maanta ee halkan lagu gaaray kaasoo ku yimid dadaal dheer iyo wada hadal dheer iyo wada xaajood dheer oo muddo dhowr cisho ah soo socday runtii gacan ay ka geysteen dad badan oo kala duwan oo ay hormuud u ahaayeen labada madaxweyne ee Hirshabelle iyo Galmudug iyo runtii mas'uuliyiin kale oo kala duwan dhacday 19 Febraayo run ahaantii waxay ahayd barmadow oo magaalada Muqdisho iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeedba ku taala cabsi badan iyo walwal badan beertay inuu dalkani hanaankiisa dimuqraadiyadeed iyo qaabkii qori isku dhiibka ahaa iyo nabadda ahayd oo ka weecdo dhammaan cid kasta way ku mahadsan tahay dadaalka ay ka geysatay sida arinta ayada ah aan directionkaas qaldan aan loo aadin ee loo aado dhinac nabadeed dhinac dimuqraadiyadeed iyo dhinac doorashooyin lagu wada qanacsan yahay loo aado waxaan rajaynayaa wada hadalka maanta meeshan ka dhacay oo runtii wada hadal aad iyo aad saraaxo iyo run isku sheeg tiro badan uu ku jiray inuu horsoodi doono dalku inay doorasho nadiif ah ay ka dhacdo doorasho xaq iyo xalaal inay ka dhacdo doorasho qori isku dhiibkii dalkani uu ku soo caana maalay muddadii la soo dhaafay inay ka dhacdo inuu horsoodi doono insha Allah taala meeshan waxaa ka dhacay runtii wada hadallo aad iyo aad u mug weyn wax badan oo badanna looga wada hadlay loogana wada xaajooday oo ay ka mid tahay dhacdadii 19 Febraayo doorashooyinka soo socda iyo sidii loo taabagelin lahaa waxaanan ku ballanay in wada hadalka halka laga sii wado si dalka doorashadiisa iyo hanaankiisa doorasho ay u noqoto mid heshiis ah ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa aad baan ugu mahadcelinaynaa dadaalka iyo fahamka iyo tanaasulka iyo wanaagga badan oo ay muujiyeen wada hadallada iyo waxa socday sidaas la mid ah midowga murashaxiinta oo run ahaantii aad iyo aad niyo wanaagsan la soo galay hoolkan la soo galay ayagana dhankooda tanaasul aad iyo aad u tiro badan ayay muujiyeen waxaan dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta joogaan baan leenahay nabad wax dhiba iyo wax colaad iyo wax mushkilada ma jiraan guriyihiina iyo hooyigiina nabad ku seexda insha Allah taala wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay madaxweynihii hore Galmudug ahna musharax madaxweyne mudane Cabdikariim Xuseen Guuleed waxaan haddana jeclahay inaan soo dhaweeyo madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wixii maanta meesha ka dhacay iyo wanaagii iyo wada hadalkii horay ayaa madaxdii uga horeysana uga faallootay uga warantay howl aad iyo aad u wanaagsan ayaa maanta meeshan ka qabsoontay howl bilow ah ayay ahayd laakiin howl bilow oo uma ekeen runtii howl oo meel fiican soo gaartay ayuu akaad meel fiican ayayna soo gaartay inaha la sheegayna waa dhiman yihiin oo waa la sii wadi doonaa waa la sii dhameystiri doonaa haddii alla yiraahdo waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda mudane Maxamed Xuseen Rooble oo runtii hogaamin iyo dulqaad iyo ka muujiyay maanta iyo dabacsanaan badan wada hadalladeennii ayadoo oo duruufo badan ay dalkaani meel walba ka xeeran yihiin haddana in la wada hadlo oo la wada fariisto oo la isu soo dhawaado way fiican tahay sida communique ka muuqatayna waxyaabo badanna waa la isku afgartay waxyaabo badanna waa laga sii wada hadli doonaa hadafka ugu dambeeya oo la wada hiigsanayana wuxuu yahay dalkaani doorasho inay ka dhacdo waqtiga ugu dhow ee suurtagalka ay ka dhacdo mid maxaan ku yiraahdaa raalli laga wada yahay oo lagu wada qanacsan yahay inay ahaato mid u horseeda dalkan deganaanshiyo siyaasadeed iyo nabad
iyo karaamo inay noqoto haddii alle in sharciyad xoog leh oo ay ka dambayso ka dhalato dowlad leh sharciyad xoog leh oo maxaan ku ihahdaa dadka Soomaaliyeedna ay ku kalsoon yihiin caalamkuna uu ku kalsoon yahay haddii alla yidhaah waxaan aad iyo aad u aaminsanahay in laga miro dhali karo arrintaas la keeni karo haddii qof walba uu iska xil saaro uu ka adkaado hadalladiisa iyo caatifadaha iyo waxyaabaha waxaa laga hadlayo mustaqbalka ummad dhan waaye laguma go'aamin karo caatifad iyo qof maalin xanaaqe iyo qof rabitaankiis iyo qofaf rabitaankood iyo muxuu ahay laguma go'aamin karo waxaan rajaynaynaa biseylkaas siyaasadeed ee maanta halkan ka dhacay inuu sii muuqdo sidoo kale waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa mabda'iyan in laisla qaatay qof kasta oo Soomaali ah oo wax tirsanaya wax qaba ra'yi qaba in la dhageysto lala fariisto laga qanciyo waxa uu qabo ama waxa uu la rabo in la dhaqangeliyo lagu qanciyo ee markaas aanu ku qanacsanayn laakiin ma jirto haddii aan la yiraahdo maxaan ku raadaay isjuubid ama qasbid ama xoog iyo maxaan ku raad colaad wax ku raadin intaba ma jirto dalkaani waa ka yimid waayihii colaad iyo maxaan ku raadaay xanafta waayihii walaalnimada isqadarinta istixgelinta isu nuglaashaha ayaa lagu jiraa waan ku soo caanamaalnay horay haddana waa ku sii caanamaali doonaa haddii aan la yiraahdo waxaa mar walba noo qoran dastuurka aan leenahay iyo shuruucda dalka ay leedahay wixii markaa aan aad u caddayn ama ka maqan dastuurkana wada hadal iyo wada xaajood iyo isqancin iyo wada ogol in lagu jiheeyo ayaa iyadana mabda muxuu ahay rasmi ah laislana wada ogol yahay haddii aan la yiraahdo ayadoo la ilaalinayo dastuurka iyo shuruucda dalka ka jirta ayadoo la ilaalinayo dhammaan wixii xuquuq ah oo ay shuruucdaas iyo dastuurka bixinayaan haddana duruufaha jiraahay mar walba tixgelintooda ayay leeyihiin waana la tixgelin doonaa haddii aan la yiraahdo mar kale waxaan u hambalyaynayaa dhammaan madaxdii mas'uuliyiintii maanta halkan muddada dheer saacadaha dheer wada fadhiyey oo wada hadal ku jiray waxaan dadka Soomaaliyeed u sheegayaa farxad iyo wanaag caawa ku seexdaano haddii aan la yiraahdo inta dhimanna waxaan rajaynaynaa inay sidoo kale ku soo dhammaystiranto oo maalmo badan oo qurux badan ay noo soo socdaan haddii aan la yiraahdo ilaahay idankiis mar kale hambalyaan leeyahay dadka Soomaaliyeed meel kastoo joogaan aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaan haddana jeclahay inaan soo dhoweeyo madaxweynihii hore ahna guddoomiyaha midowda murashaxiinta mudane shariif sheekh axmed بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد رئيس وزراء محمد حسين روبله مدحويني هراء مدحويني شغل مدوق مدحويني هراء قل مدوق حلبان هذا يو وزير هذا دمان بعد الصحافة ده يو انت ندقي سنة يساء وحانيكو سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرشحين تميل له intaas markaan ka gudbo runtii sida mas'uuliyiinta iga horeeyay ay sheegeen halkan waxaa ka dhacay wada hadal maanta laakiin sida la idin sheegay hore u soo socday ay ka qayb qaateen dad kala duwan dad muuqday dad aan muuqan marka hore waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dadkaas ka soo shaqeeyay wada hadalkan waqtiga soo socday maxay ahayd kuna soo gabagaboobay bayaanka la akhriyay oo aad wada maqlayseen intaas markaan ka gudbo ani waxaan isleeyahay waa tilaab fiican hore loo qaaday bani aadamku inuu kala ra'yi duwanaado waa shay dabiici ah laakiin muhiim waxa ah inuu wada hadli karo xalna ka gaari karo waxa uu isku hayo waxaan isku hayna waa dowladnimadana waxaa asaas u ah wada hadal iyo sharci labadaas asaas ah waxaa laga yaabaa mararka qaar hal qodob in qofba si u fasirto marka haddii aan laga wada hadlin lagama gaari karo xal nidaamka dimuqraadiga ee maanta annaga aan dul taagannahay ama aan ku shaqaynayno waa nidaam curdun ah marka in
dadka Soomaaliyeed ay dareemaan dawlad ay leeyihiin oo u jilcan oo sharciga ilaalinaysa waa arrin aad iyo aad muhiim u ah marka annaga dhinaceena haddaan nahay murashaxiintii ama midowga murashaxiinta waxaan ka hadlayna kaliya waxay ahaayeen dadka murashaxiinta ah ha helaano si waafaqsan dastuurka in ay heli karaan maxaan ku yiraahdaa waxa dastuurku u saamaxayo inay political space heli karaan haddii ay wax ka qabaan dawladda waxa ay sameynayso inay banaanbax nabadeed samayn karaan iyo wax alla wixii xiriir la leh arrimaha doorashooyinka oo ay ka mid ahaayeen heshiiskii dhuusamareeb waxyaabihii ka soo laabtay sidaas oo kale waxyaabaha laga hadlaya sidaad maqlayseen waxaa ka mid ahay 19 February wixii dhacay dhammaan waxyaabahaas oo dhan waa la isla soo dhaweeyay fadilaahi alxamdulilah ku mahadsan waxaan rajaynaynaa waxa waaye inay wada hadallada sii socdaan laga miro dhaliyo dadka Soomaaliyeedna ay arkaan doorasho xura oo xalaal ah oo lagu wada qanacsan yahay natiijadeeda la aqbalsan yahay hore u sii socon karta sharafna u ahaa karta dadka Soomaaliyeed meel joogaanba waxaan aaminsanahay ilaalinta sharcigu waa wax muhiim ah waxa dastuurka loo qoray oo dawladnimada la isugu yimid oo halkaas loo wada fadhiyana waa taas ayaana rabnaa anaga dhinaceena inaan ka ilaalino meesha nooga aadan uga aadna ilaahay idankiisa طبعا mararka qaar waxa laga yaabaa qofba inuu meel ka istaago sida aan sheegnay laakiin waxa lagu xalli karo waxa kamid ah in la isu yimaado oo la wada hadlo oo laga heshiiyo waxa maanta halkan ka dhacayna waa heshiiskaas kaasana rabnaa inuu hore u sii socdo ilaalinta dastuurka iyo xuquuqda iyo xurriyaadka waa waxyaabaha dawladnimadu ku istaagto marka qofku inuu mar walba dul istaago waa laga maarmaan sababtuna waxa waaye waxa fawdada iyo kala dambeyn la'aanta iyo in dhibaato dhacda keenayo waxaan aaminsanahay inay yihiin sharciga oo la hareer maro marka dhammaanteen aan wada ilaalino sharciga aan wada ilaalino heshiisyada dadka Soomaaliyeedna sidaas ay nabad iyo horumar u gaari karaan waa run dalka waxaa ka jira corona waa run waxaa ka jira amni darro laakiin ayaguna excuse uma naqon karaan xurriyaadka in la qaado excuse uma naqon karaan in dadka la caburiyo marka waxaan rabnaa labada dhinac in laga istaago qof walba meesha ku habboon oo ka istaago qofka maanta jooga berri ma joogo qofka berri jooga berri dama ma joogo dawladnimadu sidaan ognahay waa wareegto marka annaga dhan waxay nagu anfacaysaa sharciga inaan ilaalino maxaa yeelay qofka maanta jooga xurmada u baahan yahay qofka aan jooginna waxa u baahan yahay xuquuqdiisa inuu helo marka aad iyo aad u mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad buu u mahadsan yahay madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed runtii maalintan weyn oo taariikhiga ah iyo munaasabaddan qiimaha badan waxaa hormuud ka ahaa oo hogaaminayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya waxaan jeclahay inaan soo dhaweeyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble soo dhawow mudane ra-iisul wasaare بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مدحوينياشي هراء الدلكة مدحوينياشي قلمدوك هيرشابيل مدحوينيه هراء قلمدوك مشرحين تا اللي بعندا وزير هذا سنة الرضا إدمانك سوقيب قلياشا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حقيقة meesha aan taaganahay qofkii istaagayaa garan kara cawada farxadda ii leedahay in dad walaalahay ah aan maanta halkan ku soo gabagabaysano heshiis is-afgarad ah oo aan soo gudbinay statementigiisa waxaan rabaa halkan inaan uga mahadceliyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo oo runtii igu garab istaagay ina soo jeediyay hawshan baaxadda leh oo culus inaan guto sida ugu wanaagsan waxaan rabaa sidoo kale inaan u mahadceliyo farsamayaqaanadii sancadeydii hawshan soo fududeeyay oo qayb weyn ka soo qaatay labadii isbuuc ee ugu dambeysay isbuucii barkii ugu dambeysay oo isugu jiraan xildhibaano iyo senatoro
shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay waa idin maqannahay nagu seexda waa noo muhiim amniga dalka waa noo muhiim xorriyatul qowlka waa noo muhiim inaan dhammaanteen ku noolaano nolol wanaagsan oo mustaqbal fiican leh mudaharaad nabadeed waa waajib dastuuri ah oo qof kasta oo Soomaali ah uu xaq u leeyahay waxaa iyadana waajib ah in cid markaa mas'uulka ka ah lagala shaqeeyo sidii ay ugu dhici lahayd si amni ah oo wanaagsan dibna uu naga soo wada gaarin insha Allah sida statementiga ama warmurtiyeedka ku qorneed waa isku afgaranay wixii dhammaan halkaas ku qornaa insha Allah Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryayaa inuu si wanaagsan inoogu dhameeyo inta dhimanna insha Allah aan dhaxdu xirno shacabka Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa in ay nagu garab istaagaan sidii aan doorashadan u dhameyn lahayn nooguna dhamaan lahayd si xor iyo xalaal ah waan ogahay habeenadan waad murugeysnaydeen insha Allah ilaahayna uu naga saaray caawa murugadii waxaan rajaynaynaa inaan farxad ku sii dhameysano inta nooga hartay doorasho waa waajib wayna naga go'an tahay dhammaanteen insha Allah way noo qabsoomaysaa inta dhimanna waxaan rajaynayaa walaalahay musharaxiinta walaalahay dowlad goboleedyada inta naga maqan dhammaan inaan gacmaha is qabsanno oo aan fududayno caqabadaha jirana aan ka gudubno si ay noogu qabsoonto doorashadaas anigana aad gacan igu siisaan caawa waxaan rabaa halkan inaan uga faa'iideysto dalka xaalad ayuu ku jiraa oo ah xaalad caafimaad ee coronaviruska yaantan waan wada mashquulsanayn oo siyaasadda ayaan ku mashquulsanayn laakiin dadkii dhinacayay ka baaba'ayeen waxaan rabaa inaan caawa dib ugu soo jeesanno oo aan gacmaha isqabsanno oo aan u gargaarno qof kasta oo naga xanuunsanayo cudurkaanna aan raacno waajibaadkii naloo saaray oo ah inaan kala fogaanno afka xiranno gacmaha iska dhaqno lana taxadiro marka aan u soo wada jeesanno waxa kaloo jirto oo aan rabaa inaan idiin sheego xilliye adag ayaan ku jirnaa oo hadda koronaha ugu horeeyo waxa ku xiga xilligii jiilaalka oo ay bilaaban doonto biyo la'aantii waad garan kartaan dad Soomaaliyeed oo masaakiina oo tuulooyin iyo degmooyin ku nool oo biyo la'aan ku dhici doono maadaama ay jiilaalkii hadda uu marayo qaybtiisii dhexe waxaan rabaa inaan u soo wada jeesanno oo gacmaha isqabsanno sidii aan uga gudbi lahayn xilligaa jiilaalka ah caqabadda saddexaad oo ku xigta iyadana waxaa waaye xilligii daadadka ayaa ku xigo oo iyadana u baahan inaan hadda iska kaashanno dhaqaalo u sii dhiganno fatahadahaas aan ka hortagno hadduu ilaahay subxaanahu wa tacaala noo idmo waa mahadsantihiin idinkana waxaa idin leeyahay habeen wanaagsan soo dhowaada wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad ay u mahadsantihiin dhammaantiin marka waa intaas inoogu dhammaatay wasaaraha noo soo gabagabay waa mahadsantihiin ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa ugu dambeysay khudbadiisii dabcan hadda مسؤولينta ayaa hadda wada hadlaya ra'iisul wasaaraha ayay la hadlayaan mas'uuliyiinta ra'iisul wasaaraha iyo mas'uuliyiinta kala duwan ee halkan jooga ayaa dabcan وايا رئيس الوزراء ما صدق مايا صور بيقلها يا صور بيقلها يا صور
madaxda ayaa sawirkii ugu dambeysay wada gelaysa dabcan warbaahintana waa ay ka duubaysaa قدال فيري لين قاس لي اجنو والله مسؤولين kala duwan ayaa hadda sawirkooda jira ra'iisul wasaaraha madaxweynayaashii hore madaxda maamul goboleedyada iyo mas'uuliyiinta kale ee xilalka ama xilka madaxweynaha u taagan markaas khudbaduuba diidayay bilowg بس daawadayaal tabinteennii live-ka ahayd ee 5 Somali TV intaas ayaan dabcan ku soo gabagabeynaynaa waxaan idinkaga tegaynaa habeen wanaagsan